dawladda Kenya ayaa markan u muuqanaysa inay duulaan qarsoon ku tahay Soomaaliya xilli ay taagan tahay xiisada labada dal ee markii horeba ka dhalatay damaca ay Kenya ku rabto qayb ka mid ah badda Soomaaliya. isku dirka qabaa'ilada Soomaaliyeed, faafinta wararka been abuurka ah, miinooyin ku aasidda xadka labada dal, cabsigelinta Soomaalida dalkeeda ku nool iyo qaabab kale ayay toddobaadyadii u dambeeyay Kenya ku dagaalamaysaa. waxay warbaahinta Kenya muddooyinkii dambe noqotay kanaalka ay dawladda dalkaasi kula dagaalanto shacabka iyo dawladda Soomaaliyeed. waxay baahiyeen warar aad u culus haddii ay jiri karaan, balse baaris dheer kadib noqda kuwa been abuur ah. warbaahinta Kenya haba ugu badnaadeen wargeysyada lagu faafiyo internetka sida The Nation iyo The Standard waxaa lagu baahiyey warar badan oo Soomaaliya la xiriira, kuwaas oo aan markiin dambe yeelan wax sal iyo raad leh. waxaa ka mid ahaa warar lagu gafay qoyska madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo xitaa lagu sheegay in ninku ehel ah madaxweyne Farmaajo ay ku qabteen malaayiin dollar isagoo wada gudaha garoonka Jomo Kenyatta ee Nairobi. waxay warar isku dir ah ka qoreen qabaa'ilada Soomaaliyeed oo xitaa ay qaar ku sheegeen in laga hortaagan yahay talada dalka. qabaa'ilada Soomaalida ee dega gobolada ay Kenya maamusho ee waqooyi bari dalkaasi ayay sidoo kale ka faafiyeen warar noqon kara isku dir oo ay qaar ku sheegeen in ay badi la shaqeeyaan Al-Shabaab. dagaal hoose ayay sidoo kale Kenyaatigu ku wadaan in badan oo ka mid ah bulshada Soomaaliyeed ee dalkaasi ku nool, ha noqdeen kuwa qaxootiga ku ah iyo kuwa ku ganacsada. wararkii ugu dambeeyay ee been abuurka Kenya waxaa ka mid ah in ay sheegeen in madaxweynayaasha labada dal ee Soomaaliya iyo Kenya lagu dhexdhexaadinayo Ethiopia, taasi oo maalmo la hadal hayay kadib uu gabi ahaan beeniyay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Danjire Axmed Ciise Cawad. propagandadan ugu badan waxay aqoonyahanka Soomaaliyeed ku sheegayaan inay ahayd mid muddo sanado ah soo socotay, badina waxaa loo tiiriyay xisbiga Jubilee ee Uhuru Kenyatta. waa kan Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqare oo ka mid ah aqoonyahanada haatanna ah musharax madaxweyne ee maamulka Jubbaland. bismillahir rahmaanir rahiim. runtii aad baan idin salaamayaa raadiyo kulmiye. colaada ay falkinayso xisbiga Jubilee ee Uhuru Kenyatta madax ka yahay ama dawladda Kenya, runtii waa colaad dadka Soomaaliyeed ay mar dhow ku baraarugeen, laakiin dadka anaga aqoonyahanka Soomaaliyeed horena ogeyn 27 sano ee dalkan Soomaaliya uu dawlad la'aanta ahaa ama dawladaha daciifka ka jireen, waxa dawladaha burburinayay Soomaaliya ka dhismi weyday ee diblomaasiyan Soomaaliya u baabiinayay dawladda Kenya ahayd iyo dawladda Ethiopia, inkastoo Ethiopia hadda isbedeshay. marka propagandahan ay idaacadaha ka wadaan ama miinooyinka la dhigayo ilaa Elwaaq, ilaa Dooble, ilaa Diif, ilaa Balaxaw, ilaa Doolow, waa mid kamid ah duulaanadii haddii aad taariikhda dib u xusuusato dhowr marxaladood oo waxa jirta Soomaaliya ay jaanis dawladeed ku heleysatay oo laga burburiyay. waxa kamid ahaa shirweynaha markuu soo dhamaaday Cabdulqaasim Xamar imaaday oo shacbiga Soomaaliyeed ay kulligood ay dawladay dhaheen oo kii lagu soo duulay qabqablayaasha lagu horeeyay. akhiiran markii maxkamaduhu ka ceeyeen koonfurta bartamaha Soomaaliya hal waji siyaasi ka furmay waa tii lagu soo duulay dawladaha dariska ku soo duuleen Kenya ugu badnaa waxa dhaqaalaha bixinaysa Ethiopia. haddeer marka waxay tahay maadaama hadda dawladda hadda ay tahay dawlad ka firfircoon waxyaabo fara badan oo jaanisay fiican heshay, waxay Kenya ka baqaysaa Ethiopia iyo cid kastoo Soomaaliya adag ah inay tani dawlad noqoto. si ay taawul marka waa in macaqalad lagu furo, waa in miiray lagu furo, waa in dagaal lagu furo, waa in la rabsheeyo, waa in been laga sheego. ujeedadu waxay tahay in Soomaaliya oo xoogan dhismin oo xuquuqdeeda la shan karto. waa inta kaliya ujeedadu. waxaa walaac badan laga qabaa xaaladda badqabka ee Soomaalida ku safraysa xadka aan la wadaagna Kenya, waxaana ay sababtu tahay Kenya oo la sheegay in miinooyin badan ay ku aaseen deegaanada xadka dhaca, oo dhowr jeer dad safar ahaa maalmihii la soo dhaafay kula qarxeen qaar ka mid ah miinooyinkaas. waxa aan wax ka weydiinay Maxamed Aadan oo ka mid ah aqoonyahanada gobolka Gedo. saacadii la soo dhaafayna waxaa jirtay in baabuur dad khayr ay saarnaayeen inay miino kula qarxday xuduudda u dhaxayso meesha la yiraahdo Gariley iyo deegaanka la yiraahdo Weelcaday. meel 9 kiiloomitir u jirta Gariley ayay maartay miinada kula qarxday baabuurka, waana xuduudda labada dal u dhaxayso. marka laba qof ayaana hadda maartay dhaawac ah oo Ceelwaaq la geeyay oo Ceelwaaq lagu dabiibaya, hal qofna wuu ku dhintay oo rayid ah. marka dhibaatadaas waa dhibaato taagan oo maalmahan ay soo tareysay. waxaad ogtahay dhowr maalmood ka hor nawaaxiga Doobley inay ka dhacday
meelo kala duwan oo xuduud ah arrintaas waa ka taagan tahay marka sidoo kale saacadihii la soo dhaafay dhamasa eeriyadeeda meelooyin badan in lagu aasaan xogta ku helnay arrintaasina waa arrin aan walaac ka muujinayno waxaad ogtahay Kenya maalmihii dambe ciidamo badan bay soo dhoobtay xuduudda Soomaaliya iyo Kenya gaar ahaan dhinaca Beled Xaawo waana barnaamijkii markii la weydiiyo la yiri arrintan yaa ka dambeeyana waxa weeyaan saraakiil ayaa kamid ah laga soo xigtay in arrintan ay tahay arrin lagu sugayo amniga xuduudda u dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya waxaad ogtahay meelo badan ayaa hadda miilooyinka maarka lagu aasay sida maarka dhamasa Soomaaliya iyo dhamasa Kenya inta u dhaxayso weelcaday iyo inta u dhaxaysa Gariley di Soomaaliya iyo di Kenya inta u dhaxayso waa masaafad dheer oo xuduudda miilooyinka lagu aasay markii la weydiiyay saraakiisha sababta miilooyinka ay u aasayaan waxay sheegeen in ay al-shabaab iska ilaalinayaan oo al-shabaab xuduudda ka soo gudubto waxay Kenya toddobaadii u dambeeyay lumisay lacag badan oo ay ka heli jirtay duulimaadyadii Muqdisho iyo Nairobi oo sidii hore ka yaraaday iyo shirarkii Soomaalida Nairobi loogu qaban jiray oo u muuqda kuwa meelo kale loo wareejiyay dad badan ayaa tilaabooyinkan Kenya ku micnaynaya inay tahay halkii ugu dambeysay ee ay taagta dhigtay kadib markii ay aragtay go'aanka shacabka Soomaaliyeed ee qadiyadda badda